بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان وان سلام يا مدحضة قوبة جوجتا أو قهر يؤوي مدحوينها جمهورية الصوماليلان مدحوين كحيجان كيسا يوم مدحوين كحيجان كهراء عبد الرحمن أو علي فارح قدوميها قولها قورتنا أخرج اللي بضع كسر وهذا شقيمي حقهم حقيقة من قضاء isaga عبد الرحمن أو علي أو كالين مقلق لها مركي أخريسين لبضوا أي اللعضي مر دحدي أو أن بدو اللعضين هلك وحا يقام مقضى علي محمد ورن عدي يعول با يقام مقضى ومركي دحي لما انت مقعابنا وحنو مليين يريهم بانو مليين انت رجي كوبيا سغاشنكي odaynimada ahaa kuntum siqaara qowm wasata'uduna kibaara qowm aakhariin qola waqtiga koobiya sagaashankii ahaa ragii odayaasha ahaa ee meesha joogay waxaan maleynayaa inaan anigu ugu yaraa baan u maleynayaa maantana waxa meesha fadhiyay inaan anigu ugu weynay baan u maleynayaa awalan iyadoo sida idin wada salaamayo awalan waxaan ka xunnahay haddii shacbiga Soomaaliland aanu nahay oo adraaftiisa maanta halkan ay ku dhantahay shaqaaqada ka dhacday laascaanood ka dhacday wadhibaato siyadoo dhib oo yaruun hoosteena uga kacday marnaba inta ay wax dhaceen muddada misha laga joogo intii ka horeysay wax dhibaato ah oo yaani shacbigu wada dareemo ma aanan ogeyn ma aanan maqli jirin markii yar baan aragnaa inay wax naga hoos kaceen mar walbana rag baa zaban walba rag baa xalliya oo jooga oo ilaahay iyaga talada u dhiibay oo xalliya waxaan ku xalliyaan islaaxiyo nabad ayay ku xalliyaan waxaan ku baaqaynaa awalan oo bulshada halka maanta isku timaadaan ay ku baaqaysaa waa nabad iyo nabad waxaan ku jirnaa bishii xurmada lahayd ee afartii bilood ee xurmada lahaa ee Rajab tii u dambeysay baynu ku jirnaa caawa ama habeen dambe waa maalintii micraajka ahayd ee weey waana bilay xurmada lahaa ee dhiig xaraam u ahaa in dhiiga la daadiyay aw xaraamta ahaa إن عدة شهود عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم أفر بوضع حرمة لباكجير وهرع سن ولبا فلا تظلموا فيهن أنفس ظلمها السمينين بالعاص إسرائيلية ذنوب طويل اللي بالله بنتها سير خير كما أقول بالله ذنب قال قالنا بلها أقول بالله ما حتى أي كجادي ديار قتل أي كجادي هدي قفوا حرم كأو حكوا ديرو أما سكويسي محرم كها وديرو أما بلها حرمة لها وديرو ديرات بديده بخيا واحد ديراده يا لا راعيا oo intii hore ee kolka hore waxa bilaha xurmada in baa la raaciyaa oo ku daran la yiraahdaa dhigaasi wuxuu dhacay bil xurmada lahaay marka in horta la isxakameeyo dawladuna ay isxakamayso shacbiga reer laascaanood walaalaha iyaguna ay isxakameeyaan dawladda waxaan si gaar ah leenahay iyadoo imika wararka aan la socono inaanay dawladdu hub waaweyn isticmaalin mar laba shacbiga ayaan loo qaadin kaari iyo madfaciyaan loo qaadin iyadoo gacan shisheeye ay soo gasho maahe oo ciidanka iyo dalkuba halis ay galaan maahe sidaa imika waa muuqatay warka ku qaadanay in dhawro shacbiga la dhawro waxaan si baaqa ugu jeedinayaa dadka shacbiga walaalaheena ee Roosola hore baan ugu hadlay waxaan khudbadayda hore ku yiri dib ugu noqon maayo laakiin nabad wax ka qiimo badan oo dadku noolaan kara ay ma jiraan nabad uu dadku ku noolaan kara waddankeena daraartii la soo galay koob iyo sagaashankii inta kale haddaan la eegin lixda caasimadaha waaweyn siday mid walba maalintii ahayd waa la garanayaa maantana siday mid walba u nooreyso ee ay halka ay marayso waa la arkayaa waxa lagu gaaray waa maxay waa nabadgelyo ayaa lagu gaaray nabad baa lagu gaaray haddii nabadii halka lagu gaaray haddana dib loo gurguriyo la yiraahdo waxay noqonaysaa تعب خسار بو نقونيا وآية قرآن أي تلمامسة ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ما كان واحد جري تبع لي قبل مسكح ذو حوية للنايين مركزا درك أي تورة تلاهذا أرورتي قلبتي مركز تاينا كانت هذه وفروا بيت هذا تاجرنا هو أحد مركزا لو نقول مهما هي القرآن كل نقول تلمام هي أول لي هي قبل دي ريدا أرورتي سمين يصدر كتوريسي galabtiina furfuraysa noqonina oo waxaad listeen in hagaajiseen hay iska xumaynina halka hore ka sii socdo marka waxaan leenahay dadka shacbiga way ka muuqataa koob iyo sagaashankii laga soo bilaabo wixii ka dambeeyay gobol waliba halkuu gaaray iyo tacmiirta halkuu gaaray waa la arkayaa waa taa adduunku maanta oo yaani inagu kamanayo ee marka la soo qaado dawladda Afriqiya haba la inagu daro kuwa yaryar haba la inagu daro kuwa fuqarada ah laakiin koobiinu ka nahay nabadgelyada koob la inagu tilmaamaa
ما أنت يا أنت هذا عضي يعني عرش حمينين marka waxaan halkan baa uga dilayaa anigu sigaara dadka walaalaha ay reer saanad ee bariga hore la sii saajin sheegay in isku aan USB la isku kaayo oran jiray oo markii beeshan dhexe la garan waayay 60kii odayadii aan soo gaarnay ay noo warameen ay beeshan laba farqiyo kala yeelatay xisbi SLA iyo xisbiga AUFT ee labadii xisbi ay eegeen iyo la yiri barta labadeenu aynu isku biirno aan tala gaarno gol khaatimo meesha la ayaa lagu qabtay waxa lagu aasaasay xisbiga USB baa lagu aasaasay si yaroo gaaraan iskugu dabqan jirnay ilaa dawladii Ziyaad Barre xamarka uu isugu yimaado iyo meel walba kulka la joogo qolada USB iyo loola jirnay marka taariikhdeena maanta ay naga xuseen saajin sheegay waxa ay xagga boorama loo qaxay reesol arintaasi kama soo fiilay waxay ka soo fishay waxa social media laga sii deynayo ee faafinaya iyo dadka qaxiyay wax iyaga gaar ka soo baxay ma marka walaalayaal waxaan leeyahay baaqaha bulshada halka joogtay oo dhan ay soo wada jeedinayso idinkuna baaqa qaata la khayr fi kathir min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna nas islaha bayna nas kuwa wax ugu qiimaha badan adduunyada ugu qiimaha badan weey ee ilaahay dadka aw ku yaaliyo walaalahay waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo ugu baaqaynaa waxaan leenahay waa dalkiini waa idin kama laha inta shaqaaqada yar ee dhacdayna waa in maxay hayeen la xalin karo miiska nabadda lagu xalin karo nabadgelyadu sida bayca waxa dad wax iibinayso qofka ama guurka mucallaqna ma noqdaan muaqqatna ma noqdo bayca iyo guurku ma noqdaan shan maalmood baan alaabta waan ka iibin shan maalmood ka bacdi la mamnuuc weey islaahuna waa sidaas oo kale shuruud lagu ma xiro sulxiga iyo heshiiska wa sulxu khayr lagu ma xiro wax shuruud lagu ma xiro mutlaq buu yahay saasoo qofku qaata in idinku nabadda maxay hayeen ad qaadataan intaasoo bulshada ay idin soo jeedisay bishaan ku jirnaana waa bisha xidmada lahayd waliba waa maalintii isrihi baan joognaa caawa ma habeen dambe ah waxyaabaha nabigeena maxamed la tusay waxa kamid ahaa masrihi kolkuu dhulka la marinayna calaamado waaweyn baa la tusay samada kolkii loo dheelmiyayna calaamado waaweyn baa la tusay waxaan idinka sheegayaa dhulka waxyaabihii la tusay waxa kamid ahaa waxa halkaa oo arkay oo la tusay nin maqas afkiisa laga jarjarayo oo dad nin halkaa la joojiyay oo تقرض شفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت طب مقص لا دعيو دبنها لا دعيو مره marka dibinta la gooyo hadana way soo baxaysaa markaas uu ma haawla ya jibriil waa maxay dadkani haawla khudaba ul fitna buu waa kuwa balaayada ka baana buu waa kuwa Soomaaliga la bala fajaas la yiraahdo waxa kale oo hadana mar labaad tusay god yar oo aad u yar oo ka soo boodiyo dibi weyn oo ka soo boodiyo markaas uu ma hada ya jibriil kana waa maxay buu markaas uu wuxuu kaasi waxa weey waa ninka weyn ee qiimaha leh ee la eegayo ee kelmadan qiimo lahayn ku hadla ee hadhow dadka isaga uu ku murugoodo dadkuna ay la wada yaabaan afkii uu ka soo baxay hadalkii mana cishan kala hadalkii marka walaalayaal waxaad yeeshaan dhan walba hadii shacbiga weyn ee Soomaaliland ay tahay dhamaantiiba si gaar ah haday tahay walaaliheen maxay soo haday tahay iska ilaaliya dadka balada ka baanaya ee bala fajaaska iska ilaaliya dad intii aan ahayn idinka aan ahayn oo reesoo lahayna oo la saacad gobolkiisa aan ka soo jeedina talada yaanu idinla wadaagin halkan waan ugu ducaynaa garaadada annagu hadaan culimada ay masaajidada nafteeda in laga baaqo weey odayadana waxaan leeyahay arintaasi ha loo guntado ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa ta'ala nabadgelyada shacbiga Soomaaliland inta maanta waxay mathilaysaa shacbiga Soomaaliland oo dhan bay mathilaysaa waxa inta shacbigaasi ay baaqa ay jeediyeen ee nabad baan ku baaqayna ay leeyihiin walaalaha waxaan u soo jeedinaa iyaguna ay nabad qaataan in wixii ay tabanayaan ay tirsanayaan miiska wada hadalka lagu dhameeyo salaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh